meelaha qaarna ay baahi ka jirto xildhibaanada golaha deegaanku waxay 2 bilood ka hor ku tageen degmooyinka hoos yimaada degmada Boorama ay ka mid tahay Boon Qulujeed magaalo cad iyo tuulooyin 64 tuulo ah kalfadhigii saddexaad ee golaha deegaanka magaalada Boorama socday 2 maalmood ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhmay waxaana kalfadhigani soo xaadiray badba mudanayaasha golaha deegaanka magaalada Boorama uu heliyo xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada Boorama ajandayaasha looga wada hadlayay kalfadhiga saddexaad waxa faahfaahin dheeri warbaahinta ka siiyay duqa magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame Baradho maanta ay tahay 15 February 2022 waxa soo idlaaday kalfadhigii saddexaad ee caadiga ahaa ee golaha deegaanka degmada Boorama ay yeesheen kaasi oo soo bilaabmay shalay maantana dhamaaday kalfadhigaasi waxa kalfadhi caadi ah muddo 2 cisho ah socday waxa doonaynaa warbaahinta inaan la wadaagno kalfadhigaas oo muhiim u ah golaha deegaanka degmada Boorama iyo shacbi weynaha inaynu u bayaamino maadaama kalfadhiyadu ay ka mid yihiin xeerka dhigaya in golo deegaan oo kasta uu yeesho kalfadhigaas ay kaga doodayaan arrimaha muhiimka u ah degmada sidii loo horumarin lahaa iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in la qabto warbixinna lagu siinayo golaha sidaynu ognahay waxaynu ku jirnaa sanad cusub oo ah sanadkii 2022 waxa dhamaaday sanadkii 2021 kalfadhigan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga hadlay waxa ka mid ahaa in goluhu warbixin uu ka dhageystay gudida fulinta taasi oo ku aadanayd in 6 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2021 waxyaabihii uu qabsoomay golaha deegaanka degmada Boorama waxa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay gudi hoosaadyada ay leeyihiin goluhu oo ah 3 gudi oo kala ah gudida maaliyadda iyo dhaqaalaha gudida arrimaha bulshada iyo gudida hawlaha guud iyo dhulka in gudi kasta ay soo bandhigto hawshii ay u qaabilsanayd golaha taasi oo ah in warbixintaasi su'aalo laga weydiiyo wixii uu qabsoomay muddadaasi iyo halka ay doonayaan inay hiigsadaan qorshahooga waxa kale oo lagaga hadlay in la xaraasho iskaraabka dhex yaala dawladda hoose kuwaasi oo ah qalab duuga ama gawaari hore oo burburtay sidii loo xaraashi lahaa loogana faa'iideyn lahaa qalabkaasi si ay u noqdaan lacagta ka soo baxdaana wax danta ummadda lagu qabto oo gasha horumarka degmada aan hiigsanayno waxa kale oo kalfadhiga ka mid ahayd inaan sameynay arrimaha hay'adaha waxa jira hay'ado kala duwan oo la shaqeeya degmada sida darteed hay'adahaasi waxa loo baahan yahay oo goluhu ka dooday in la sameeyo coordination ama xafiiskii isku xidhi lahaa hay'adahaasi si loo ogaado hay'ad kasta iyo cid kasta oo degmada Boorama wax la qabanaysa inay cadaato halkay wax ka qabato iyo waxay qabato iyo faa'iidada ay u leedahay dadka iyo degmadaba sida darteed waxa jira inta badan in meelaha qaarna ay ku badan yihiin oo ay dhacdo in 2 mashruuc ay meel ku wada dhacaan meelaha qaarna ay baahi ka jirto xildhibaanada golaha deegaanku waxay 2 bilood ka hor ku tageen degmooyinka hoos yimaada degmada Boorama ay ka mid tahay Boon Qulujeed magaalo cad iyo tuulooyin 64 tuulo ah si ay u soo ogaadaan baahida jirta marka golaha deegaanku isagoo ka duulaya baahidaasi waxay kaga doodeen kalfadhigan in meel kasta oo baahi ka jirto cidii wax ka qabanaysa lagu hago la ogaado si markaa la iskugu xidho baahiyahaas iyo wax qabadkaasi waxa kale oo lagaga hadlay kalfadhigan in la dardargeliyo nidaamkii maamul daadajinta taasi oo ka mid ahayd qorshayaashii aan hiigsanaynay in magaalada laga sameeyo 4 xafiis oo horena u ballan qaadnay in hawshii sanadkan cusub sida ay u qabsoomi lahayd iyo sharciga ay ku qabsoomi lahayd nidaamkii maamul daadajinta loo sameyn lahaa inay la fuliyo marka dardargelintaasi xafiisyada la furayo ayaa iyaduna qayb ka ahayd kalfadhigan waxyaabaha la isku qaatay waxa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay aafooyinka dabiiciga ah inta badan ku soo noqnoqda Soomaaliland si guud gobolada iyo degmada Boorama taasi ay ka tahay abaaraha waxa lagaga hadlay sida khataraha dabka oo kale marka in dabdamiska iyo taageeridiisa sidii wax loola qaban karo in aafooyinkana goluhu uu go'aano cad ka qaatay waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama